السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غيرتنا أجعلنا هي سوى البضن مقلسان يميلود بو أجوكتان بكسو دوادا برنامج كينا فاقدا دا عيارها قد بدا عين كوهينا وحاوا وين ترتنك قرام بدا يرب أوميل حيسا يا حماس صد لمريو شان كوح أو عاو الصبح دي إيو لبك سدح كوحوت أو كهري حالي سيا صبحي barnaamijka intuu socdo ayaad ku maqli doontaan mar kale iyo barnaamijkeena faaqidaada cayaaraha aan ku bilownay group E ayaa caawa dheelay ayadoo group E ay isku dhaganayeen afar wadan oo kala ah Isbaanishka, Slovakia iyo wadanka Poland iyo Sweden. ciyaarta xiisaha badan ee la wada sugayay ayaa waxa ay dhaxmartay xulalka Slovakia iyo wadanka Isbaanishka oo laba dhibic kaliix watay iyo Slovakia oo saddex dhibcood lahayd ayaa fooda waxa isku dareen garoonka Estadio de la Carti ee wadanka Isbaanishka gaar ahaan magaalada Sevilla ku yaalo. ciyaartaas oo Slovakia inkastoo awood badnaa wadanka Isbaanishka wadan wax walba uu ka suurtoobana uu ahaa ama wax walba laga fili karay ayaa labadii ciyaar ee ka horeysay ee uu dheelay wadanka Spain waxa uu ku bilowday Siniya Jable kadib markii ay jamaahiirta Isbaanishka oo u bartay banooni qurux badan in uu wadankooda dheelo goolal iyo inay dhaliyaan ciyaar qurux badan isku darsan jiray ayaa gabi ahaanba wax ka duwan labadii kulan ee kulankan caawa ka horeeyay la soo shirtagay ayagoo laba dhibcood oo kaliya ka soo helay labadii kulan ay la kala dheereen wadamada Sweden iyo wadanka Poland oo labadaba bareejo la galeen hase yeeshee Slovakia ayaa dhankeeda waxay ka soo badisay kulankii ugu horeeyay ee ay groupkooda dheereen wadanka Poland ayagoo Sweden ay laga badiyay balse ciyaartoodii saddexaad ay la dheelayeen wadanka Isbaanishka. groupkan ayaa markii hore waxaa la filayay in ay ka soo bixi doonaan saddex kooxood maadaama groupkii xalay England iyo Czech Republic iyo Scotland iyo Croatia ay ka soo baxeen saddex wadan hase yeeshee nasiibka ayaa u diiday groupka inay saddex kooxood ka soo baxaan asigoo nasiibkana u wacday dhanka group F oo aan idin soo wado barnaamijkiisa. haddaba ciyaartii xiisaha iyo xamaasadda lahayd ee la sugayay ayaa waxa ay ahayd Slovakia iyo Isbaanishka. hadduu caawa Isbaanishka bareejo geli lahaa ama laga badin lahaa tartanka uu ka hari lahaa hase yeeshee Isbaanishka caawa waxa uu ku badiyay 5-0 asigoo gaaray guul weyn una soo baxay tartanka qaramada Yurub wareega 16. ciyaarta oo maraysa 12 daqiiqo wadanka Isbaanishka ayaa loo dhigay rigoore hase yeeshee Alvaro Morata oo waayahanba ay ka dhuntay dhanka goolka ayaa rigooradii qaatay asigoona laga badbaadiyay oo Bortieri inta ka raacay dhanka midig isku tuuray waliba foora ka sii bixiyay kubadii hase yeeshee daqiiqadii 30aad wadanka Isbaanishka ayaa waxa uu helay goolkiisa goowaad ee furitaanka kadib markii ciyaaryahan Pablo Sarabia uu ka dhaliyay gool ay difaacyada Slovakia qaladkiisa ay lahaayeen oo dhexdooda ka helay kadibna uu darbad awood badan ku ridin goolka Slovakia halkaas oo boortaha intuu badbaadis dhahayay asigiina shabaqa goolka geliyay intiisa kaamla marin ayaa wadanka Isbaanishka waxa uu helay goolkiisa labaad kadib markii uu darbad qurux badan ka dhaliyay. Aymeric Laporte ayaa goolka labaadna ka dhaliyay ayadoo lagu kala nastay kaamkii hore ee ciyaarta 2-0 hase yeeshee markii la isku soo laabtay kaamkii dambe ayaa la sii burburiyay wadanka Slovakia goolal aysan ku rafaadin oo saddex ah ayna qaybtii labaad dhaliyeen wadanka xulka Isbaanishka. goolashaas ay u kala dhaliyeen isla ciyaaryahan Pablo Sarabia oo goolka saddexaad dhaliyay iyo ciyaaryahan Ferran Torres
oo badel ku soo galay 44 sekin asiga oo garoon ku jirana dhaliyay goolka afraad ee ciyaarta halka goolka shanaadna ay iska dhaliyeen difaacyada xulka wadanka Slovakia. dhanka kale ciyaarta kalena waxaa wada dheelay wadanka Poland iyo Sweden oo mar hore rajadeeda u soo bixitaanka tartanka qaramada Yurub ee 16 sii xaqiijisatay ayaa waxay la dheelaysay wadanka Poland hase yeeshee kaamkii hore ay waxay ku kalnasteen 1-1 markii la isku soo laabtay ay Sweden dhaliyeen gool labaad hase yeeshee waa la bareejiyay ciyaartooda dhamaan rabtane waxay Sweden heshay goolkii saddexaad. Gruubkan Sweden ayaa ku soo baxday kaalinta koowaad halka kaalinta labaadna ay ku soo baxday wadanka Isbaanishka waxaana gruubkan ka haray ama tartanka qaramada Yurub kaga haray gruubkan Poland iyo Slovakia waxaana 16 u gudbay Isbaanishka iyo wadanka Sweden. dhanka kale gruubka geerida ay ku wada jireen wadamada Isbaanishka wadanka Jarmalka, Faransiiska, Portugal iyo Hungary oo ahaa gruubka lagu magacaabay gruubka geerida ayaa waxaa dheelay ayagana caawa ayadoo ciyaartaas ay ahayd musalsal aan dhammaad ahayn kadib markii wadanka Portugal iyo Faransiiska laba gool ay kala baxeen. labada gool ee Portugal waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo halka Faransiiskana uu labada gool u dhaliyay ciyaaryahan Karim Benzema. dhanka kale Jarmalka iyo Hungary ayay ahayd kulankii ugu horeysay ee gruubka lagu furay waxayna la ciyaareen Portugal kuwaasoo 3-1 kaga soo badiyay hase yeeshee Hungary kulamadii dambe ayay waxay la imaatay ciyaar mucjiso ah kadib markii Faransiiska la gashay bareejo 1-1 ah. dhanka kalena caawa Jarmalka waxay la galeen 2-2 ayadoo waliba Jarmalka qarka u fuulay in gabi ahaanba tartanka uu ka haro kadib markii gool looga hormaray ay bareejeeyeen daqiiqadii 66 taageeraha